in ka badan 150 dagaalamayaal iyo horjoogayaal ka tirsan al-shabaab ayaa lagu hareereeyay deegaanka ceel hareeri oo dagaal culus uu ku dhexmarayo xoogga xoreynta Hiiraan ee macawisleyda beesha xawaadle oo garabsanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. wararka la helaya ayaa sheegaya in qasaare xooggan oo al-shabaab ka soo gaaray dagaalkan oo markii hore ku bilowday weerar gaadma ah oo dadka deegaanku ay si qorsheysan ugu beegsadeen goobo ay isku aruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyagoo markii dambe ay dagaalkan dib uga biireen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab. labada dhinac ee dagaalkan u dhaxeeya ayaa iskula durkay aagga tuulada Garasmagan oo 40 kiiloomitir u jirta qiyaastii degmada Moqokuri ee gobolka Hiiraan. waxaana jira warar sheegaya in goobta markii hore uu dagaalku ka curtay lagu hareereeyay in ka badan 150 horjoogayaal iyo dagaalamayaal isugu jira oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo aan haysanin waddo ay ku baxaan ayna ku adag tahay inay ku sii dagaalamaan goobtan maadaama aysan heli karin gurmad uga imaan kara kooxdooda. ilaa 3 gurmad oo isku soo bedeleen argagixisada al-shabaab ayaa lagu jabiyay dagaalka socda kuwaasi oo isku dayay inay qaataan dhaawacyada iyo meydadka goobta ka yaala lana baxaan xoogaga laga go'doomiyay oo aan la ogeyn sida xaaladoodu ay noqon doonto. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga xoreynta deegaanka ayaa saraakiishoodu ay xaqiijiyeen inay gacanta ku dhigeen hub isugu jira noocyada kala duwan ee qoryaha fudud iyo kuwa garbaha laga gamo ay al-shabaab kaga furteen dagaalkan. waxaana sidoo kale jira warar iminka soo baxaya oo sheegaya in al-shabaab looga gubay dagaalkan gaadiid dagaal oo qaarkood siday sahay u badan rasaas ay gurmad ahaan u keeneen goobta uu dagaalku ka socdo. dhanka dawladda iyo dadka deegaanka waxaa weli sii qulqulaya gurmadka ka baxaya Tarda iyo Jalalaqsi kuwaasi oo xoojiyay fagaaraha dagaalka waxna ka bedelay oo ku biiriyay fartanka dagaalka oo aysan al-shabaab ku sahlanayn inay gurmad isaga gudbiyaan deegaanada dhankooda xiga oo ay baqdin xooggan ka qabaan diyaaradaha dagaalka iyo duqeymaha la daba jooga. ciidamada gaarka ah ee kumaandooska Soomaaliya ee danab oo kamid ah dagaalkan ayaa dhankooda argagixisada ku wajahay istaraatiijiyad dagaal oo isugu jirta duqeymo iyo dagaal toos ah. waxaana dadka reer guuraaga ah ee aagaasi ka fog ay soo sheegayaan in saacadihii dambe ay maqlayeen duqeymo culus oo ay adeegsanayaan ciidamada danab ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab kuwa oo garab siinaya dadka deegaanka. dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadanayso halganka lagula jiro kooxaha khawaarijka diiday dowladnimada Soomaaliyeed in ummadda Soomaaliyeed ay noolaato. waxaan rabnaa anika haddii ilaahay dadka waxa laga dhaadhiciyay shabaab waxay dadka ka dhaadhiciyaan ciidamada isbuucayda la joogi rabaan kadibna anika dib ugu soo noqonayn. qof kasta waxaan u ballan qaadaynaa meeshaan tagno inaan dib uga noqonayn meel kasta aan tagno saacad aan dib uga noqonaynaa ma jirto. gudbi muuqaalkan daawade oo gaarsii saaxiibadaada kale adigoo sheer garaynaya sida ay kula tahay waxaad aragtidaada nagula wadaagi kartaa qaybta commentiyada. waana noo muhiim laagtaada nagu soo biir haddii aadan hore ugu jirin boggeenan Cabdullaahi Warsamo Roble oo na soo follow garay.